جابان جزيرة كتال حيبت بريئة قارد إيشيا تساليال تولمون tilmaamayaal ka tusmaysan nolosha siyaasadda dhaqanka bulshada iyo qiimo ahaan qarankooda waxa ay yihiin kuwa ugu halhayska badan marka laga faaloonaya qaran jabay soo kabtay haddana liicay welina la soo kufaakacay duruufo kala duwan oo isbiirsaday maanta se ah dal mudan duni mudan iyo dad mudan marka loo eego heerka aqooneed isku tashi bulsho iyo jiritaanka haykalkooda qaran waa tusaalaha ugu mudan ee dunida malaha duruus looga dhigi karayo marka aynu xagga ka soo yara weecanno mar kale waxay noqon doontaa madal wax jaangoysa gole loo dhan yahay iyo madal curin doonta arrin abuuri doonta xasaasiyad ay adag tahay sida dawadeeda iyo dawiibkeeda kol dhow oo aan dheereen loo heli karayo toddobaadka soo socda ra'iisul wasaaraha dalka Japan Fumio Kishida ayaa noqonaya taariikhda hogaamiyihii ugu horeeyay ee Japan ee abid ka qayb gala shir madaxeedka NATO ka qaybgalka shirkan oo uga qayb galaya magaalada Madrid ee dalka Spain waxa uu noqonayaa fariin dhowr qaybood loo qaadi karayo marka qeexitaan loo raadiyo ama suurayn maangal ah oo soo koobi karaysa ujeedka iyo fariinta nuxurkeeda shirka sanadlaha ah ee wadamada G7 oo uu ka qayb galayo waxa ay sidoo kale banaanka keeni doontaa dabeesha diblomaasiyadeed ee gobolka iyo arrimo kale oo mudan oo dhinaca amniga la xiriira kuwaas oo dalkan ka dhigay safka hore isbahaysi loo sameyn doono wax kasta magac mooye si uu u maamulo Shiinaha ra'iisul wasaaraha Japan oo dhawaan doorasho tanaasul ah oo xisbiga talada haya ee September la soo dhaafay la qabtay ayaa markii hore u ekeyd inuu noqon karo waqti kooban oo kale sida ra'iisul wasaare kasta oo Japan taariikhda sooyaalka dawladnimo ay ku caddahay tan iyo 2006 marka loo eegayo siduu u badbaaday Shinzo Abe laakiin hogaamiye Kishida ayaa si orod ah dhulka ugu dhacay waxa uu si guul leh u hogaamiyay shir madaxeedka wadamada Quad ee Mareykanka, India, Australia iyo Japan isagoo ka helay natiijadii uu ka doonayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaana madashaasi ku sii jiray oo iyadana la tusmeyn karaya ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi waxaana uu xoojiyay xiriirka uu la leeyahay koonfur bari Asia isagoo safar ku tagay Indonesia, Vietnam iyo Thailand iyo khudbadii ugu muhiimsaneed ee shirka IISS Shangri-La ee amniga ee lagu qabtay Singapore booqasho heer sare ah oo uu Yurub ku tagay bishii May wuxuu iftiimiyay cunaqabataynta Japan ee Ruushka wuxuu la kulmay hogaamiyaasha Jarmalka iyo Talyaaniga oo la og yahay kulankaas inuu ahaa mid muhiimad weyn ku fadhiyay marka laga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee guud ahaan maanta gobolka waxaa dheereed in uu heshiis cusub oo difaac ah la galay Britain intii uu ku jiray saxiixa taageerada Indo-Pacific xor ah oo furan oraahda Japan ee ka ilaalinaysa Shiinaha inay wanaajiso sheegashooyinkeeda hamiga ah ee lahaanshaha jasiiradaha iyo aagga badda ee la xidhiidha ee koonfurta Shiinaha iyo bariga Shiinaha ee badda Japan waxay la shaqayn doontaa quruumaha kale waxayna qaadi doontaa tilaabo go'aan adag si aanay fariin qaldan ugu dirin beesha caalamka si xoog loo isticmaalo in si kali ah wax looga bedelo xaaladda taagan ee weligeed dib looma soo noqon ayuu Kishida ku yiri khudbad uu ka jeediyay London bishii May oo qayb ka ahayd socdaalkiisa caalamiga ah mowduuca ayaa u muuqda duulaanka Ruushka ee Ukraine laakiin erigu wuxuu cadeeyay inuu sidoo kale lahaa suurtagalnimada duulaanka Shiinaha ee Taiwan halkaas oo Japan uu la leeyahay xidhiidh soo jireen ah maskaxdana uu mar walba ku hayo aragtiyaha Beijing ee gobolka ku wajahan